kulanti wacan oo wanaagsan kheerta hawada nagala socotay kusoo dhawaada qodobada wararkeena ugu doorka roon oo halkan aad ku dhagaysan doontaan hadduu eebba uu idmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka maraykanka caasimadiisa washington d c ayaa waxa uu sheegay in uu somalilan uusan siinaynin wax la dhaho xorriyad iyo gooni goosad. waxaa kasoo jawaabay arrinta ayada muuse biixi asagana hadalla ad adag ayuu ka muujiyey. waxaa kaloo qodobada wararkeena ku jira ururka al-shabaab oo beriyahan dadka shacabka ee ku nool gobolka hiiraan iyo dhinaca mudug ka burburinaya ceelashii ay biyaha ka cabahayeen. qodobada wararkeena faahfaahsan ayaan falanqeyn doonaa, waxaana ila jooga saaxiibkay cabdi oo isha ku haya. cabdi soo dhawow. muuse biixi iyo xasan sheekh maxamuud hadalla ayaa dhex maray, maxaad war inooga haysa? horta mahadu waa mahadsan tahay. xasan sheekh maxamuud wuxuu ku sugan yahay dalka maraykanka magaaladiisa washington caasimada dalkaasi maraykanka, wuxuuna la kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan dalka maraykanka. marka wuxuu khudbad uga jeediyey meel fagaaro ah. marka wuxuu ku dhahay somalilan anaga xornimo aan siinayno ma jirto, mana ogolin in somalilan ay goosato. soomaaliyana waqtigii ay kala go-i lahayd ma joogto. marka waxaan u baahanaho dhahay in midow soomaaliya oo macnaha soomaaliya ay mid ahaato, wixii qaladaad oo jirana la saxo, wixii xataa laga wada hadlayo inay dhankooda ay kasoo yeeriyaan waan u ogolnahay. anagana waxyaaba yaryaroo jira aan ka saxeynaa, heshiis ayaana qaadanayna, waana ogolnaa soomaali mid ayaan diyaar u nahay. laakiin marna aqbali mayno soomaali kaleo naga sii go-do, rajana lagama qabo dhahay taas. marka arrintaas xasan maxamuud oo ka dhawaajiyey markii washington ka khudbeeyey kadib waxaa xalay ka hadlay magaalada burco ninkii la yihahdo muuse biixi cabdi, wuxuuna sheegay in soomaaliya iyo somalilan ay 30 sano kala maqan yihiin, wax xiriir oo hadda ka dhexeyna ma jirin. nin madaxweyne fadhiyo oo london fadhiya ama madaxweyne wuxuu dhahay muqdisho fadhiyo, anaga waxaan xiriir kala leenahay ma jirto. madaxweyne soomaaliyana shaqo kuma lihin. haddii asaga marka wuxuu yidhi dhaqaalaha iyo waxyaabaha wanaag oo dhan waan la qaybsan doonaa, inay iska noolaadaanna u ogolnahay. marka wuxuu yidhi waxaas oo dhan ba lagalama tashanayo, anaga waan go-onay, mar horaan go-onay. 54 dowladood oo afrikaan ayaa jirto, 55 ayaan ku noqonaynaa. wayna hortaalaa, meel walbana waa horgeynay, africa o dhan aa horgeynay, caalamka horgeynay inaan xornimo doonayno. marka mahado wuxuu dhahay anaga soomaaliya waxaan kala tashanayna malahan, xornimadeena banaanka inoo taala. 32 sano oo ay somalilan raadinaysay in ay gooni ugoosad ama dowlad ay noqoto madax bannaan, soomaaliya ka madax bannaan, weli waxay gacan ku hayso oo madax bannaaniya inaba ha yaraatee ma jirto. maalinkii ugu horreysay ee ay istaageen 90 wax ay bannaanka ay u istaageen ilaa hadda weli halkii unbay taagan yihiin. wixii dhaqaale ahoo caalamka ugu soo talagalayna soomaaliya loogu dhiibaa weli usoo gacanteeda ugu soo gudbisa. marka cabdi, muuse biixi waxaan uu leeyahay waxbaan dirna iyo hanjabaadan iyo waxan uu dadka shacabka uu maskaxda kaga furahayo. anigu waxaan u arkaa shaqsi ahaan inay tahay kaabingaraysi iyo in uu hadda ku maran habaaminayo dadka shacabka ee indhahooda ay saaran yihiin reer somalilan. uu hadda uu kharibay uu laayay xabadda uuna kaga dhigay, haddanana hadda uu ku kaabingaraysanayso. arrinkaas unbuu kolley indhahooda ku jeedin doonaa saan aan qiyaasino. laakiin waxaad adigu in ay somalilan maanta wax dowladnimo ay u soo dhowdahay ama ay qaadan hayaan miyaa muuqata? horta mahado waa mahadsan tahay. somalilan horta xornimo oo hadda la dhihi karo wadan hebel xornimo siinaya meesha ma taagno. dowlad ogol in somalilan xornimo qaadatana ma jirto. dowlad walba oo imaadana maxamed cabdullaahi farmaajo dowladiisana caalamka ayada oo kaga dambeeyey somalilan arrimaheeda. haddana xashin maxamuud waa ujeedaa meesha maray, weli caalamka ayaga ayuu kaga dambeeyaa. dowlado ka horreeya kuwaan kasii tabar daranaana wadanka soo maray. marna somalilan waqtigii burburka lasoo maray, marna somalilan xornimo la siinaa wadan dhahay ma jiro. wadan ogol ma jiro in somalilan xornimo ay qaadato. marka adduunka qof walba waa ka cabsana. afrikada la sheegayo 54 dal oo sheegayo muuse biixi cabdi wadan maanta dhihi karo ku dhiiran karo somalilan wadan u aqoonsana ma jiro. marka waa culeys un. laakiin 2 gobol ama 3 gobol oo isheeg soomaaliya ka tirsan haddii la dhaho xornimo la siinaa, culeys ayay keenaysaa. marka u malaymaayo inay xornimo si fudud ku heli doonaan. hadda waa ognahay Djibouti xaaladda ku baxday iyo waqtiga baxday, laakiin hadda Soomaaliya in xornimo ay beri dambe u muuqato u malayn maayo. marka waxaa fiicnaan lahayd Somaliland iyo Soomaaliya inay heshiiyaan, wixii qalad dhacana laga heshiiyo, hogaanka dalkana xataa Somaliland loo dhiibo, madaxweynaha dalka Soomaaliya maamulaya xataa nin Somaliland laga dhigo. cabdi, taas dadka dhan shacabka isla aaminsan. haddii madaxweyne ay laga dhigayo somalilan iyo haddii ay ra-iisul wasaaraha qaadan hayaan, intuba wax kasoo hor imaansanoo maanta diidan oo shacab soomaalida ma jiro. shacabka soomaalida wuxuu arkaa inay yihiin gobol soomaali kamid a, walaalahooda la jecel yahayna, laakiinse ayaga ayaa waxay iska dhadhiciyeen in ay gooni u go-aan. taasna waxay ka suurowdaa dowladda soomaaliya in ay dhahdo
somalilan madax bannaan ayay tahay, waana madax bannaan ay caalamka bandhigto, markan bay dowlad noqon karaan. laakiin gobolkaanagi wey intay ku dhegan yihiin adduunka dhan baa cabdi iyo isku wada xidhxidhan, sida hadda Taiwan oo kale, China iyo wadamo kale oo fara badan iyo isku wada dhegan. marka Soomaali lafteeda ninkii dhahaad maanta Somaliland waan aqoonsanhaya, wadooyin kale oo fara badan buu furhaya. marka qodobkaas halkii haddaan cabdi aan kaga sii tagno, waxaan rabaa inaan u gudubno qodobkeeni. Al-shabaab baa dadkii eberka sii awal hore dadkay xoolaha ka qaadan jireen oo way baadi jireen, laakiin hadda waxay ku darsadeen nafti biyaha ee lagu noolaa oo qofka hadduu biyo waayo uu baktiyayo dhimanayo inay ceelasha ka wada burburiyaan. maxay oga dan leeyihiin? wallahi horta mahado waxay ugu dan leeyihiin ururka al-shabaab ceelasha ay burburinayaan, waxay ugu dan leeyihiin in horta dadka shacabka la dabargooyo oo baahi ay qabato ay cararaan oo deegaanka. hadda maadaama dadkii la dhaheen qaab qabiilan u kacnay, gobolka hiiraan oo kale aada looga kacay, mudug oo kale gobolada mudug oo aada looga kacay, ishaag maxaa laleeyahay baay bakool xataa meelo badana laga kacay. marka gobolka hiiraan hadda barashar zaid ay saareen, meel maxaas u dhow ayay waxay ka gubeen, tuulo maxaas u dhow ayay waxay ka gubeen ceelkii, tuuladii dhanna waa gubeen oo dhulka ku dareen, ceelkiina qarxiyo ku xireen waa ka qarxiyeen. marka al-shabaab dagaal toosa ayay ku hayaan shacabka, shacabkuna ayagana waatay is abaabuleen. marka dadkii is abaabulay dagaalka ku jiray dad aan ahayn oo masaakiin oo meel iska degan ay shabaab dhibaateynayaan, guryihii isha ka guwaayaan, ceelashiina ka qarxinaa. marka sabab macnaha dadkaasi ku qabiil yihiin, dadka nagu kacsan ku qabiil yihiin darteeda ayay saas macnaha u sameynayaan. marka al-shabaab iyo dadka shacabka way is hayaan, xaaladuna meel xun ayay maraysaa. haddana tuulooyinka la iska gubo, ceelashina la gubay hadda marayaan al-shabaab intaas ay sameeyaan. marka dhuunta laga jaro adiga meelaa joogto malahan waa ka qaxaysaa meesha. marka shabaab waxay ugu dan leeyihiin dadka shacabka deegaanadaas iyo tuulooyinkaas inay kasoo qaxaan meelo kale iyo magaalooyin kale iyo tuulo kale u kacaan. marka culeyskii saas ayay dadka shacabka barasharka u saareen mahado. shabaabku waxay ku nool yihiin cabdiow saan ognahayba dadka shacabka lacag canshuura ay ka qaataan oo baad ah, iyo dhulka ay degan yihiin oo ayagana ay biyaha ka cabaan. dadka shacabka ay ku dhex iyo tuulooyinka ay dadka shacabka ay degan yihiin oo ay maamulaan ay wax ka qaadaan, dadkaasi ku dhex noolyihin. dadkii ay ku noolaayeen hadday ku dhaqaaqaan oy ay cunaan, awl hore lacag bay ahayda, laakiin hadda nin baa shalay wuxuu sheegahayay 100 sac oo aniga aan leh way qaateen buu dhah, guryahaygina way gubeen. taasi maamul mooho, diinna kuma sheeganayaan, waa dadka ay qudha ka jarahayaan. marka waxaa muuqata inay dadka isku soo jeediyeen. cabdisalaam lama dhihi karo shabaab siday hadda shacabka ugu kacay iyo arrintan hadday socoto waa xilligii shabaabba la waayi lahaaba. horta mahado waa sax. horta shacabka dagaalka kula jiro maxaa la ururka al-shabaab, horta gobollo badan ayaa hadda dagaal kula jiraan ururka al-shabaab, laakiin 100% lama dhihi karo. qaybo badan oo kamid ah laakiin Soomaaliya iyo weliba xarumaha meelaha xudunta oo sida Hiiraan iyo Galmudug iyo meelahaas oo kaleeto ayaa dagaalku hadda ka socdaa. marka shacabku hadii abaabulkan hadduu dhab ka yahay oo toos u yahay shabaab baxar ayay ku jiraan. Soomaaliya sida ugu sii shaqeeyaanna way adkaan doontaa. marka haddii waxba isbedelin shabaab saan uma wanaagsano, shacabkuna kacaan uma wanaagsano, way ku dhex noolaan jireen, way ku dhex shaqaysan jireen, wayna dhex degnaayeen. marka haddii shabaab iyo shacab hadday isku kacaan, kolba shacab una adkaanayo sababtoo ayagaba shacabka ka yimideen. kuwaasi waxaan qodobada wararkeenii ugu dambeeyey oo aan kaga hadlaynay Somaliland oo xasan sheekh maxamuud uu ka hor imaaday in ay noqoto dowlad gees oo madax bannaan, iyo shabaabkii oo ummadii alla ku dhaqaajiyey oo biyihii iyo ceelashiiba ka burburinaya. khayrta wadan nagala socotay meel kasta joogtaan, saas iyo nabadgelyo.